السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق يا شارب الشوك وحران رمضان كريم رمضانكم يلو باجوكتان هذه وعنا هذا وحان الله هاي ومدى الصومالية ميرو باجوكتو برواقو إيا بش هاكو جوكت وحان كلون إلهي فضلك رمضان كأوغيس كبرينا دادك أبارها دادك دادتكو إيا دباتوينكو gobolada kala duwan ee Soomaaliya ay ku qaadeen marna abaaruhu soo wajahan marna daadadka iyo dagaalada iyo waxyaalaha kala duwan ee soo wajahan waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka dulqaado waxa weeye war degdeg ah oo hadartan la soo gaaray sida alla socotan Shaariba Show mar walba waxaan soo daynaa inaan idin soo gudbino dhageystayaasheena in wararka ugu dambeeyay ee markaas aynu helno aan idin soo gudbino oo xaqiiqda ku salaysan halka marka ka baxaana tixraac dambe aad ku sameeysan oo aad ogaataan oo tirahdaan shalay ma ahane bishii hore ama daraad ama toddobaadka hore ka dhageysanay Shaariba Show wararkaas oo xaqiiqda ku salaysan dibna aad ka ogaan doontaan marka koowaad iyo marka labaad waxaan rabaa halkan inaan tacsi uga gudbiyo ambassadorkii Soomaaliyeed ee u fadhiyay jaamacadda Carabta iyo dalka Masar naxariistii janno Allah ka waraabiyo Cabdiqani Maxamuud Wacays oo ku geeriyooday dalkaasi Kuwait halkan haalgelin baan rabaa inaan ka bixiyo ku saabsan arrinka tacsidaas oo saakay aroortii ka baxay Shaariba Show waan iri wuxuu ku geeriyooday dalka Masar arintaasi waa qalad farsamo oo dhacay marka ka raali noqda wuxuu ku geeriyooday dalka Kuwait naxariis janna Allah ka waraabiyo hore wuxuu soo shaqeyn jiray dawladii hore sidaan ku soo sheegay siiba wasaaradda waxbarashada wuxuu ka soo shaqeeyay Baydhabo Muqdisho waa dawladii dhexe Maxamed Siyaad Barre oo dalka xukumaysay xilligii kacaankii iyo Hargeysa muddo dheer wuxuu ahaa diblomaasi sare marka halkan وتعسينا هالكيس سمرية إيمان الله كسي ورك ما تيسو قدبني دق وحوي هاي بعد رمضان حدي إلى هاي إنه شربة وحكنا عيا وكفر مياه شركة صفر مياه شنطة بيش اللحاد بيش الجون يا سنة كان لبضكم إلى باتنك جروه حرم تمام القبلات بنتلان ويسوي تجيان مضشة حسبية قرن سياسيين مدح بنان والرب الشو مامولك بنتلان جوبلان halkaas oo uu ka bilaaban doono dagaalkii iyo dabayshii siyaasadeed ee ugu adkaa Soomaaliya oo la rabo xukunka in looga tuuro rejiimka uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha uu ku yahay Xasan Cali Khayre Soomaaliya waxay galaysaa waji cusub waxay galaysaa in doorashooyinkii hardan adag uu ka dhaco nabadiyo nololna ilaa hadda barnaamij ay leeyihiin oo siyaasadeed ma aysan soo bandhigin xisbi guud oo qaranna kuma aysan dhawaaqin ilaa hadda taas oo macnaheedu u muuqato inay tahay doorasho la qabanayaa ma jirto waxay rabaan doorashada sida jadwalka ugu jira nabadiyo nolol in doorashada 2 sano ay ku darsadaan taasoo aan macquul ka ahayn dalka Soomaaliya iyo danaha beesha caalamka ee dhaqaalaha ku bixisa geeyiga Soomaaliya shirkaasi ka dhacay 5 bisha lixaad Garowe caasimadda Puntland waa shir aad iyo aad u adag waa shir gilgili doona nabad iyo nolol waa shir ay u badan tahay boqolkiiba 70 in la soo dhiso baarlamaan ka soo horjeeda oo ay soo xushaan Jubaland Puntland iyo madasha xisbiyada qaran Soomaaliya xaaladaas adag ee wajahayso waxa dhalan doona loolon siyaasadeed oo adag oo ku soo aadaya xilli cudurkii coronavirusku oo Afrika markaan ku sii faafayo qaasatan Soomaaliyana qaybo kala duwan ku sii faafayo fatahaadaha wabiyada oo socda iyo dhibaatooyin badan oo isu saaran Soomaalida marka siyaasiyiinteedu ma lahan tanaasul ay isku tanaasulaan shir ay isku yimaadaan oo iga wada hadlaan warqabkee baan u qabsan karnaa doorasho xor iyo xalaal ah qaabkee baan ummadeena baaba'san aan u badbaadin karnaa
shacabkii Soomaaliyeedna waxay noqdeen inay la kala saftaan hadba kooxaha kala duwan ee Soomaaliya ku hardamaya ayadoo aan moodid Soomaalida shacbiye ahaan anu siyaasiyiinta ka hadli maayo shacbiye ahaan inaysan u bislaanin waxa siyaasiga uu yahay ee hadba ninkii ku qabiil ah ay la saftaan madaxweynaha maanta joogaya waaye waa qabiilkayga ra'iisul wasaaruhu yaa waaye waa qabiilkayga halkaas uu kala safanaya marka ninkani siyaasiga dan kuma hayo qabiilkaaga uma hayo cid uu hayana malahan ilmihiisa iyo familkiisa buu hayaa siyaasi Soomaaliyeed oo xil qabtay haduu jiro ama kan maanta joogo farmaajo ka soo qaad waa ninkii wadanka u nixi lahaa waa ninkii madasha xisbiyada ee ka soo horjeeda qaran u yeeri lahaa Puntland la shiri lahaa waxay tabanayaan Jubbaland sidoo kale miiska waa hadalka la fariisan lahaa aabba Soomaaliyeed u noqon lahaa siyaasigu waa aabbaha markaa hogaaminaya itihaadka iyo halka uu ku socdo wadankaasi ama wadankeenu taasi ma muuqato taay baa la soo xiranaya ummadii oo baabacday ummadii oo biyihii qaadayaan iyo xaaskii iyo maxaa la yiraahdaa masaskii isku meel ku hooyanayaan ummadii oo abaar ay mar abaar soo wajahayaan ummadii oo cadow kale oo laynayo qandaraas lagu soo siiyo argagixisay ah buu ninka ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha ama wasiir isku sheega taay u soo xiranaya xagee taay u xiranaysaa waa xagee meesha taay loo xirtaa ma wadan nabada oo israacsisan oo aad ku raaxaysan kartid shaqada aad qabanaysid iyo dawladnimada miyaad xukuntaa oo aad joogtaa kaamirooyinkiiba soo dhigaya taay buu soo xiranaya markaas waxaad maldaa madaxweyne dal nabada haysta Trump oo kale waxa way marka Soomaaliya waxa ku soo wajahan siyaasad aad iyo aad u adag tartan aad iyo aad u adag oo nimankii siyaasadda Soomaaliya isku haystay ay rabaan inay siyaasad iyo tijaah adag ay ku galaan marka insha Allah warka degdeg ah oo ku saabsan inuu shir dhici doono oo Garowe ka dhici doono 5 bisha 6 baan idin soo gudbinayay oo aan helay waxa way marka wararka dambe ayaan insha Allah idinku soo faafin doona haddii aad ku cusub tahay Shaariba Show fadlan subscribe ka sar si aad ula socotid barnaamijyada maalin walba aan soo update gareyno iyo saacad walba aan soo gudbino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh